ma ogtahay caqabada ugu weyn xayiraada ugu weyn ma aha inaad qasaartid inay noloshu kaa jajabto inaad maaragtay ground zero kasoo bilaawdid oo gurigaagu kaa dumo olyaadaadin adiga ku sigayaan in lagu dayaco in bini aadan kaa tago caqaba ama caafimaad darro kugu imaato anything caqabada ugu weyn oo bini aadanka ku imaan karto waa maskaxdiisa maskaxdan hadday wax xataa gaaraan maaragtay qalinka wuu istaagayaa dembigaaga iyo xasanaadkaaga lama qoraayo marka caqabadeena ugu weyn waa maskaxida meel yaraan wax kaa tusiyo weligaa haddaa isdhahda shaygaan ma qaban kartid ma ahaan kartid way kaa dhamaatay way kaa jajabtay waxa samaynaysid ma taqaanid haddaa isdhahdid maalintaas ogow derbi adaa dhistay nolosha dhan kaa xayira marka caqabada ugu weyn waxa waaye inuu aadamigu isdhaho waxaan way kuu dhamaatay laguma caawinin laguma yeelin laguma samayn adduunka ilaahay way uu u design gareeyay markiinoo qaraxyada volcanoha markuu dhaco waa dab naar ah meel kasta waa gubayaa meel kasta aashiisu ka dhigaya kadibna cagaarka ugu quruxda badan badaha ugu quruxda badan adduunka meesha dalxiiska loo tago ay noqotaa meeshaas marka ilaahay adduunka wuxuu u design gareeyay completely hadday xataa baaba'do inay mar labaad wax qurux badan ka dhistaan aadamiguna waa saas tacmiiraa loo dhisay tacmiir inuu wax qabsado wax sameeyaa loo dhisay ogowna dudun kastoo ilaahay keeno bini aadamkiyo adag bini aadamkiyo khibro leh bini aadamkiyo wax badan qabsan karaa ka soo baxaya burburkaas burburku ma aha dhamaasho ha isdhihin waxaan way kuu dhamaatay caqabada waxaa dhahdaa yaa rabbi bedel khayr qabo aqbalna khasaarada aqbal inuu ilaahay subxaanahu watacaala bini aadan u imtixaano inaad tahay alxamdulilah rabbi ka wanaagsan iyo ka wanaagsanna isii rabbi meel sare i gaarsii ilaahay qofna kaama xigto cidna kama tuugaysa inaa wax weydiisatid qasnadaha aan dhammaanina ilaahay agtiisa yaalaan marka maantay ma maskaxdaada ku xayirtay mase maaragtay duruuftan aa fahmi lacdahoo ku ciishay bani aadanka ilaahay tacmiiru adduunka u keenay inuu amareeyo xadiidka xataa wuxuu ku leeyahay hadday qiyaamada dhacaysa aa geed aa abuuri lahayd abuur aduu og qiyaamadii inay dhacayso adduunyadu ay dhammaanayso geedka abuur macnaheeda waxaa waay never give up ilaahay agtiisa waxyaabo maskaxdaada hadday kusoo dhacaan inay kuu soo socdaan adiga dhan kala badbadanaysid aa kuu yaala qadartaas fiican waxaa ku heli kartaa inaad ducaysatid ka foq dadkan aa haysatid ka foq yaa nolosha kaa dudumiyey yaa wax kuu keenay yaa ku lugooya annaga dhan yuus iyo waxaa naga soo haray saanay wax iga noqdeen beriyaasaan la igeeyey ninbaa intaanu dhaloo kan sameeyey noqo alxamdulilah rabbilcaalamiin yaa akhi balaash waan ku cafiyey awlaadeeda daraadiisaan ku cafiyey wax weyn igalama maqnid walaalkay yaa tahay haddaa waxay siin kartid oo ilmaha aan wada korsan karna korsano xayiis ka dhig gabar qurux badanaa tahay ceerka acbaar ku jira wax kastaa qabsan kartaa cilmi kastaa baran kartaa yaa rabbi ledheh cafiskana ka bilow haddaa awooda soomaaliyaanaho haddaa cafis idinku soo kaado meelo dheerdheera ila aadaysin masaji waxaa soo qoraysin anigu xataa aana aqrin karin oo ama saasaan hilmaama cuqdadan iyo waxaan qadar ay ku dhaceeni adigu meesha ka fiican nolosha ka arag ha imaado maalin adigu ka fiican tahay ka horumarsantaa kaa cuqdada u qabta ama taa cuqdada u qabta ama qofka wax ku geeyay ee markaa ka horumartid iska cafi ee qof sare sii noqo awoodda markii la leeyahay oo meel sare la gaaro cafwigaa la badiyaa ilaahayaa keena maalintii qofkii dibdhaca kuu sameeyey aa ka baratay maaha waa ka hormaray shalaytadeedaa kasoo baxday qofka ha u heesin adoona cidna u sheegin iska cafi nolol quruxaa jirta cafwiya ku imaanay fikiray ku imaanay maskaxdaada inaa horizonka u bixisidii oo meel sare wax ka aragtay meel fog ka fikir maanta kaliya waxa ku haystay iyo dagaal iyo aarsasho iyo balaayo kalan keenayo marka hadal badan meelba buuxinaayo fikradda dhan aan rabo aan qadameeyo waxay tahay waxaa raadinaysid gudahaagay ku jiraan adig kaliyaana ogeyn farxaddaa raadinaysa halkanay ku jirtaa yaa rabbi dheh ee kala soo bax xiriirka inta iyo ilaahay subxaana watacaala isku xir yaa rabbi yaa raxmaan waxaasaan jecelahay inay khayr ii tahay ma ogi rabbi ii yasir oo isii ilaah waxaasaan damacsanahay yaa rab maanta dhan ilaahay waxaa rabta weydii yaa ilaahay wax ku dhaha haddii cibaadkayga i kaa weydiiyaan wax kastaa uga dhawaahay kan wax i weydiisanaysaan u siiyo aayad dhan oo qur-aana waay kan i weydiisanayo sharci kalama leh ilaahay i weydiiso saddex meelay aadaysa ama waa lagu siinaa ama wax kalooda war u haynaa lagugu bedelaa ama mushkilooyinaa lagaaga bedelaya ama yowmal qiyaama hal ilaahay kuu siinaya danihii aa laheyd oo aakhiradii xanuunka badneed kaaga fujinaya insha allah adduunka tii ugu fiicneed waa haysataa
وأشهاتنك هدا أشهادنيسد محاكو ديبن الدنيا تن ugu qiimaha badneed oo dib kasta loo soo maray adiga dhaxala ku heshay waa shahaadanka waalidka muslim ahaa muslim ku sii noqotay alxamdulillah de way hagaagaysa nin xaalad istaagsananaysa ma jirto dawaa min xaal min almuhaal waa hal xaalad ina noloshaada ahaato wax dhici kara ma isbedel inna ma al-usri yusr ay ku dhisantay qorraxdi soo baxdo waa tii dhacdana waa tii soo baxdaa marka waxba kaama hadlaysno insha Allah maalmaha qurux kaliya sugu waayne tuugmada ilaahay iyo dadaal ku gaar meeshaan kala soo dhaxbax wanaag waa meeshu ilaahay daalacanaay waa gaari kartaa waa noqon kartaa wax kastana ku halaayaan insha Allah laba ragca xiro culayska ha ka tago ya rabbi ee qorrax kasta waxa tira wanaagiya ii bilaawday insha Allah ta'ala fikrigaaga iyo qalbigaaga meesha rabti ku tag ee markaa tagtid this is my dream waxaan ku riyoonay waa kana waan ba arkay anaa bar ku fikiray. السلام عليكم أهلا الخير نوعيتها بالإيشة إن شاء الله مانت دتك مركي ومعاملات كلين عودة مركي لو ناجيو حمانتك وجواب ماته مسوحاتها دتك السيدة مثلي ولا رقمه هداي وناجي سواك وناجينا هدي أي حميسنا وحمينا مسوحاتها هاي دتك فضلك دتك كل رقمه حتى قفك وناجي ماته مسوحاتها هاي قفك سوء أسجع عليها إن دتك ولا رقمان ولا رقم دتك آته مسكفي عني waxaa tahay dadka kula dhaqmo sidoo ilaahay jecel yahay oo maaragta oo rabo islaaxa iyo afwiga oo man afa wa aslaha fa ajru ala Allah maata mase waxaa tahay qof jecel ya sida uu asiga jecel yahay inuu ilaahay wanaajiyo inuu dadku wanaajiyo waa martabada ugu sareysa waa say jeceshahay la in wax alle iyo waxa adi ilaahay ka rabtid markay dhaqankaaga soo gasho ilaahay agtiisa ka helaysaa insha Allah nooceeta isweyti nooc allana nooca ka sareeyo isku day inaa noqotid oo ka fiican sii noqotid aniga hada marxaladan taagan alxamdulillah rabbil alamin waman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah waxa isku dayaaya marxalada dambe inaan tago ilaahay diiraaho oo sida aan jeclaan lahaa inuu ilaahay ila muamiloodo aan dadka ugu wala muamiloodo waa darajo aad u adag waaye ilaahay qofka u yasiranta si darajadan hada ma aragtay oo man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sanada iga qaadatay marka aad noocay tahay mana jeceshahay marxalada hadda ka istaagsan tahay marxalad ka fiican inaan noqotid adkeysigeedna ma leedahay tools kana ma haysataa meeshaas sida ku gaari lahayd iyo mutqana wanaagga ku gaari lahayd dadaalka ku gaari lahayd ma haysataa ama cilmiga ku gaari lahayd ma haysataa waa muhiim maaragtay muaamalaadka bini aadanka waa sida baabuurado kale traffic بابورا وين بابورا ير بابورا اسلوه بابورا عصب اسبيديه kala duwan ku socdaan mida maaragta qaanuunka jabinaayo oo xoog u socdo mida maaragta lalkii guduudan gooynaayo mida nalka cagaaran gooynaayo mida edab badan oo umada ixtiraamayo xataa fursad siinaa inuu baabuurka kale ka hormaro oo dadka ixtiraamayo mida dadka markii wanaag loo sameeyo xooga oo la wanaajiyo gacanta u taagaya marka waa sida traffic oo kala bini aadanka nooc kasta la kulmaysa baabuur weyn badan arkay oo rar wado adaa cabsanaysid oo gadaal noqonaysid marka bini aadanku asaas muaamalaadkiisa laakiin adiga rad ficligaaga ama jawaabtaada see jeceshahay inay noqoto seena hadda taagantahay I think موضوع شيق waa oo fikirna u baahan maaragtay maraatib sare sidoo kale uu ajiro ku jira sida man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ajrigaas qof ogmal si kastoo lagu xumeeyo inaad bini aadanka iska wanaajisid oo tan ilaahay uu amray ama uu ilaahay ka rabo ma amro uu ka rabo raacid oo awoodeeda hadaa leedahay ina islaahna la imaatid iskana cafidid for the sake of Allah marka insha Allah maraaxilkaas kala duwan ilaahana wada gaarsiiyo midkee tahay isweyti iyo midkee rabtaa